السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة وناكسن ومركلة iyo muuqaal kooban haduu ilaahay yiraahdo oo aan kaga sheekeyn doono hawlihii maalmahan baan ka soo sheekeynay la xiriiray buuga iyo qoritaanka iyo suugaanta iyo wax la mid ah haduu ilaahay yiraahdo dhawaan waxaan sidan ka duwan aan u sameyn doonaa haduu ilaahay yiraahdo barnaamijyo ku tacalluqa arrimahaas ama xiriir la leh kuwaas oo aan ku garfaynayno buugta aan kaga hadlayno qoritaanka aan kaga hadlayno kolba wixii u dambeeyay halkaas ku soo biira anagoo aan awood saari doon ama aan ka hadli dooninba waxyaabaha Soomaalida ragaadiyay inta badan Soomaalidu ka hadlaan ama siyaasadda ama iska sheekada wax la mid ah anoo marna aan macnaha rajo ka qabin ama aan sugaynin in sida qof siyaasad ka hadlo kale ama qofka barnaamijyada iska aan muhiimada aan lahayn oo kale ka hadlo kale in dad badan daawan doonaan ama dad badan ku soo biir doonaan haddana waxaan awood saari doonaa mar dhow haduu ilaahay yiraahdo inaan sameeyo barnaamijyo xalaqaad ah oo taxana ah oo socda oo qaar ay isbuucle noqon doonaan qaar ay bil noqon doonaan kuwaas awood aan ku saari doono haduu ilaahay yiraahdo inaan kaga sheekeyno dadka suugaanleyda adduunka soo maray Afrika Aasiya Yurub America Latin meel kasta ahaadaan talabaad buugta iyo gorfeyntooda iyo ka sheekeyntooda iyo qorida iyo wixii aan ka garanayno inaan wax ka sheegno iyo مواضيع كواس حير له waxaan rabaa inaan muuqaalka haduu ilaahay kaga sheekeeyo waxa jira buugta markii laga hadlayo waxa jira buug qofka qoray dilay waxa jira buug ummadan masiirkeeda iyo dhankii u socotay bedelay waxa jira buug uu qofka laga yaabo inuu markii horeba rajo badan ka qabin laakiin mustaqbalkiisa oo dhan wanaagsan u bedelay oo mustaqbalkiisa wax ka dhigaa laga yaabo buug waxa jira qofkii lahaa ku xukumay xabsi daa'im qof waxa jira buug uu qoray dalkiisii uu ka bixiyay oo ka ceelay sababtoo ah dawladaha iyo xukunka markaa jira ya afkaar uu jeclay qofkii soo gudbiyay waxaan muuqaalkan yar ku soo gudbin doonaa haduu ilaahay yiraahdo sheeko waxa jirta arrin la dhaho buuga qofka dhan mustaqbalkiisa baabi'iya ama maqaalka waad dhihi kartaa yani buugna ka dhigi kartaa maqaal waad ka dhigi kartaa ama article waad ka dhigi kartaa waxaan soo xusuustay maanta maraan akhriyay buug ya qoraa Mareykan ah ayaa wuxuu nolol maalmeedkiisu ku xirnaa waa bilowgii qarnigii 20aad wuxuu nolol maalmeedkiisu ay ku xirnayd ama ku tirsaday asaga iyo xaaskiisa qoraalada uu qoro wuxuu iska ahaa qoraa iska dhexdhexaad ah wargeys buu shaqeyn jiray wargeyskaas maalin walba wuxuu qori jiray maqaal inta badan arrimaha bulshada u badan iyo dhibaatooyinka mujtamaca haysta iyo sida loo xalliyo iyo dhaliilaha ay dawladdu leedahay adeegyada si dadka loogu bixiyo waxyaabahaas ka hadli jiray badanaa dawladdu qofka qoraaga haduu ismoodayo inta badan inaan la socon dawladaha qoriddu ay macnaha ka leedahay macnaha qofka waxa laga yaabaa hal article oo lagu soo qoray wargeys inay siyaasadda bedeshaa dhici karto waxa dhici karta in mujtamacii ama bulshadii si fiican loogu adeego ma ahaynin marka wax weyn laga sugay ma ahayn laakiin wuxuu ahaa ay wargeyskuna u baahan yahay asagana wargeyska u baahan sunnah nololeedkiisa u saarto maalinkii dambe waxaa dhacday okay xaaskiisa waxay u ahayd marka qofka koobaad ee wuxuu qoro gorfeeyay akhriyay xaaskiisa intuusan u dirin madbacada halka wax ka bedel halka wax ku dar saanyeel bay kala talin jirtay waxaan sameyn doonaa xalqad gaar ah haduu ilaahay saameynta ay xaasa ama dumarku ay ku leeyihiin qorayaasha yani ninka qoraaga ah xaaskiisa saameynta ay ku leedahay waxaan xalqad ka sameyn doonaa haduu ilaahay yiraahdo niman aan qoraab ahayn oo xaaskoodu ka dhigeen qoraa wanaagsan niman qoray buug laakiin aan han badan lahayn oo haweenkooda ay u bedeleen hero iyo qof caalami ah adduunka laga yaqaan nin qoraa ah oo qoraalkiisu fiicnaa laakiin hanti iyo dhaqaale aan haysanin oo saameynta ay ku leedahay iyo garab istaaga xaaskiisa yani ku noqday buugiisii adduunku gaaray xalqa gaaran arrinta kaga sheekeyn doona haduu ilaahay yiraahdo daa'iman marka qofka qoraaga arrinta ugu muhiimsan u baahan yahay waxa weeye inuu haysto deganaansho nafeed inuu haysto iyo maskax inuu haysto inuu buuq iyo problem ku furnayn haddii marka guriga buuq kaga furan yahay oo problem kaga furan yahay oo mashaakil kaga furan tahay oo dhibaato arrin guriga kaga furan tahay qofkii wax soo saar sugaaneed ma yeelanayo ama qoraal ma yeelanayo sababtoo qof qoraal wuxuu u baahan yahay maskax degan meel aan buuq lahayn iyo wuxuu u baahan yahay qofka in lagu caawiyo inuu wax qoro sadarteed boqolaal qof waxa jiray mowhibo ama hibo wax qorin leh oo aan haysanin fursad ay ku qori lahayn ama nolosha ku adkaato ama guriga buuqa ka haysto ama deganaansho la'aan haddareemo waxyaabo badan baa jirta qofku wuxuu u baahan yahay in uu helo qofkii hibadii markuu leeyahay wuxuu u baahan yahay in dadka
la nool yahay ku caawiyaan imise qof oo qoraa fiican ahaa baa bulshada uu la nool yahay iyo deegaanka ku nool yahay caawin la'aanta ka haysata ku noqday qof aan waxba ahayn way tiro badan yihiin xaaskiisiiba marka wuxuu arkay markii uu ku dul akhriyay marka qoraalkiiba ku dul akhriyay wuxuu arkay xaaskiisii oo inaysa ilintii iyo diifkii iyo wixii isku dartay aad u helay saameyn xoog leh marka wuu naxay wuxuu isiri miyay xanuunsan tahay uu taabtay hebel maxaa kugu dhacay waxay tiri weligay ma arkin qoraal ka fiican oo ka wanaagsan qoraalkan aad samaysay weligay ma arkin inta aan buug akhriyay ama wargeys akhriyay ama maqaal aan akhriyay waa kii ugu wanaagsanaa ugu saameynta badnaa noloshada intaan nool aad buu farxay sababtoo wuxuu ogyahay islaantiisu uu mujaamalaynayso been uma sheegayso qoraal buu qoraa waxay dhahdaa kan uu khaldan yahay bedel kan ma fiicno bedel kan dhaliil buu leeyahay bedel kan uu fiican yahay wargeyska gee innagana Soomaali haddaan nahay laba u baan nahay Soomaalida in badan arrintaa waa sheegay qofka qoraaga haddaad jeceshahay oo saaxiibka u yahay ama saaxiibta u yahay oo u sacbatumaysaa يعني waxaad ka dhigaysaa inuu yahay geesi inuu yahay qof aan qalinkiisa la arkin haddii aad qofka necab tahayna waxaad leedahay wuxuu qoran waxba kama jiro maana baranin inaan qoraalkan la tacaamulno inagu iska loobayno qofka tusaale ahaan in qofka aad walaaltiin saaxiibtiin eheltiin qaraabatiin adoo macna ku sameeyeen in aad ka hadasho waxa uu qofkan qoray yaa wanaagsan ama xun wali maana baranin waan rajaynaa laakiin aan barano oo macna noo sameeyso ninkii wuu yaabay marka asagoo faraxsan saanta waxa ku tiri waa hubaa haddaad kankiisu wuxuu noqon doonaa wax dalka iyo meel walba laga sheego wuu tagay wargeyskii u geeyey si caadi wargeyska looga qaaday wuxuu arkay 3 maalmood kadib wax allaana wixii wargeys magaaladaas iyo gobolka uu joogo ka soo baxay oo dhan oo maqaalka soo daabacay wuxuu noqday maqaalka loogu akhriska badan yahay 50 sano ee la soo dhaafay xilligaas uu noqday wuu gudbay Mareykanka uu ka gudbo Yurub iyo adduunka oo dhan buu galay wuxuu noqday wax lagu sheekaysto okay maalinkii dambe yuu maqaal qoray islaantiisu ku dul akhriyay waxay tirnay maqaalku fiican yahay laakiin kii hore kale ma aha wargeyskii buu geeyay uu ka shaqeyn jiray waayo ninka qoraalka uma aha wuxuu jecel yahay hobbigiisa ma aha kaliya oo isaga raaxaysto ama wax ku qoro waa noloshiisa qoraalku waa labo qof qoraalka lacag kama helo yani wuxuu jecel yahay hiwaayo isagu leeyahay oo inuu sameeyo uu jecel yahay wax qoro qofna noloshiisa ku tiirsan hadduu wax qoro waayo wax uu ma helayo ninkan saas oo aha marka wargeyskii uu geeyay wargeyskii markuu geeyay waxa ku dhahay aad u maasan tahay laakiin akhristihii maqaalka hore akhristay kan dambe nagama aqbalayo saadarteed waxaad u baahan tahay in aad mar walba qorto kii oo kale ama ka sareeya anaga wax ka hooseey kuma daabici karno wuxuu yirniyo arintan ii daabac buugan aniga waxaan rabaa inaan noolaado hala ii daabaco wax uu diideen waxay dhaniyo ka cuurdaarayna guriga tag laabo bariyaha haysataa maqaal soo qor soo dadaal kii oo kale ka soo dhig oo baxay xaafadu tagay qoraal bas habeen ku dhan wax qoray waa markii bari wargeyska u geeyay waxaan aad baan uga xunnahay kana waa kii haddaan ceelino kale anaga maqaalka dadku waxay naga sugayaan heerkii aad qortay iyo wixii ka sareeya marka wax ka hooseeya waan ka cudur daaranaynaa sababtoo lama gadan doono wargeyska naga ninka asagoo yaabano aad iyo aad u waxaysan yaa wuxuu tagay yaa islaantii ku soo laabtay xaaskiisii arrintii buu sheegay waxay tiri okay wargeys kale u geey wargeys kale u geeyeen oo way soo dhaweeyeen aad baa lagu sacbatumay waxa la aad baan ugu maasanahay inaad noo imaatid waan ku sugaynay maxaad rabtaa waxaan rabaa in maqaal ama article-kan la ii daabaco way fiiriyeen waxay dhaheen niyow aan ka cudur daaranaynaa sababtoo ah waxaan soo qaadanay oo soo ergeysanay maqaalkii aad wargeyska hebela aad ku daabacday niyow marka annagoo kaa daabacnay kan hadda ma daabici karno aad iyo aad baan uga xunnahay okay xaafadaha tag soo naso mid kale soo qor maqaal buu qoray ku labaad ku saddexaad ku afraad ku shanaad uu keeni waayay mar walbuu geeyay waxay dhahan kii hore kale ma aha annaga ma aqbalayno dadkii wargeyska iridooda imaanayaan laan dadku waa dad wax akhriska qiimeeyo oo u diyaarsan way sugayaan way ilaayihiin ma soo bixin ninka qoraalkiisa ma soo bixin nimankii buu tagay wuxuu ku war qoraal iyo waxaas iyo tayo idinka ka hadlay anigu waxaan rabaa inaan noolaado inaan wax cunaan rabaa xaaskeen wax cuntay rabtaa guri baan degan inaan iska bixiyaan rabaa war anigu nolol baan rabaaye wanaag iyo waxa ma rabeen inuu maqaalka qaato siiya lacag aan ku noolaado waxay dhaheen ma ka cudur daaranaynaa niyo arrintaa ma samayn karno asagoo ninkii yaaban buu xaaskiisa kusoo laabtay wuxuu maxaan samaynaa waxay tiri magaca bedel magac toban cara ama ergisa qaado magaca ku qor kadibna wargeysada u dir sidii uu sameeyay wargeysada u diray sidii markuu sameeyay baa marka yaa loo daabacay
asagoo yaaban oo aad iyo aad u murugaysan oo ka walbahaarsan dee noloshiisa oo dhan inay baabi'i rabto sababtoo ah ma qori karo maqaalka hore oo kale ma qori karo yaa maalinkii dambe wuxuu arkay nin midiyo gadaya oo meel fadhiya ninka xagga gadaashiisa waxaa yaala 12 midiyooda aad u qurux badan oo si fiican u soofaysan oo wanaagsan baa xagga dambe yaala qof kasta oo imaado wuxuu ka gadaa dhowr iyo 30 kale oo hortiisa taala oo saawir ah oo aan fiican lahayn buu u soofeeyaa kuwan u siiyaa wuu daawadaa wuu imaaday markii dambe wuxuu yiri waxa ku weydiinayaa niyo kuwan wanaagsan maad ka gadi dadka maxaad kuwan oo gadaysaa wuxuu yiri kuwan dhowr iyo 10 ka ah waxay iga qaateen inaan sameeyo dhowr bilood mar walbana iyaga oo kale ma samayn karo saa darteed dadku hadday kan bartaan wanaagsan midida wanaagsan dadku bartaan tan xun igama gadan doonaan saa darteed tanaa dadka laga gadaa markaa tan ka gadid oo 100 xabo intaas aan gado yaan hal xabo ku dhex daraa laakiin dadku tan hadday kaaga bartaan mar dambe tan kaama gadan doonaan haddii tan la gadan waayo nolosheeda baaba'aysa saa darteed yaa waxaa loo bixiyey qoraalka ama buugga qofkii qoray burburiyey